muranka xadbadeedka waa arrin aad u soo kordhaysay qarnigan 21aad isla markaana saaxada cadaaladda caalamka ku badnayd. Dalalku waxay hadda aad uga walaacaan xuduud badeedka marka lagu tuhumo kheyraad dabiici ah sida macdanta iyo shidaalka. Hase ahaatee, muranka xadbadeedka wuxuu caqabad ku yahay dalalka xeebaha leh maxaa yeelay xadeynta ama inuu xad cayiman leeyahay waxay dalku u ogolaanaysaa inuu aaggiisa badeed ka faa'iidaysto. Muranku waxa uu burburiyaa xiriirka caalamiga ah iyo isku xirnaanta dalalka u dhaxaysa. Sidoo kale dhaqaalaha, shaqo abuurka iyo horumarka labada dal ayuu caqabad ku yahay. Muranka xadbadeedka waxaa inta badan bilaaba dal ku xadgudba xuduud badeedka dal kale uu lahaa oo soo jireen ahaa marka uu yimaado kheyraad aan horay aaggaas loogu ogeyn. Waxaa jira muranno xadeed oo muddo 10 sano ah soo jiray. Muranka badda ee Kenya iyo Soomaaliya kama duwana taas, waxaana cad in Kenya ay muranka bilowday si ay uga faa'iidaysato ama faa'iido gaar ah u gaarto. Kenya waxay xaalad kasta u adeegsatay inay gaarto ujeedkeeda ka hor inta aan dacwadda badda ee Soomaaliya aan loo gudbin maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. Toddobaadkan waxaa markii saddexaad dib loo dhigay dhageysiga maqalka ah ee dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya kadib markii Kenya ay codsatay in dib loogu dhigo sababo la xiriira dhaqaale xumo iyo dagaalka ka dhanka ah COVID-19 darteed. Haddaba waxaan doonayaa inaan iftiimiyo noocyada xal ee jira kuwa ay Kenya doorbidayso iyo sababta ay ugu meermeerayso maxkamadda in lagu kala baxo. Xogtaydu waxay ku salaysan tahay baaris tixraac xeerka badaha, dacwado horey ay ICJ u qaaday iyo arrinta badda Kenya iyo Soomaaliya oo aan si weyn isha ugu hayay tan iyo 2009 iyo xogo aan ka helay dad ku dhawaa xukuumadihii dalka soo maray iyo tan hadda jirta. Marka hore, xalinta khilaafaadka. Qodobka 287 ee Cahdiga Qaramada Midoobay ee badaha wuxuu dhigayaa in dhinacyada ay murankooda ku xaliyaan ama u maraan hab iyagu ay doorteen. Waana marka wadahadallo dhexdooda ah laga guul gaari waayo, taas oo macnaheedu yahay in si caalami ah ama maxkamad lagu xalliyo. Kenya ilaa bilowgii waxay isku dayeysay in arrinta badda lagu xalliyo meel ka baxsan maxkamadda. Si cad bay u sheegtay heer xitaa ay ku dooday in maxkamadda cadaaladda adduunka aanay awood u lahayn qaadista dacwadda, iyadoo ku andacoonaysa in Soomaaliya iyo Kenya ay heshiis isfahan horey u wada saxiixdeen. Inta aan u gurin sababta ay Kenya u diidan tahay maxkamadda in lagu kala baxo, aan soo qaato 4 qodob ama nooc oo ay Kenya doonayso in muranka lagu xalliyo. 1. Wadaxaajood negotiation. Kenya waxay doonaysaa marar badanna sheegtay inay doonayso in muranka badda ee Soomaaliya kala dhaxeeya in lagu xalliyo wadaxaajood. Wadaxaajood waa hab nabadeed oo dhinacyada muransan ay arrintooda ku xallisanayaan. Qaabkan waxa ay Kenya aaminsan tahay inuu fursad u siinayo inay faa'iido hesho halkii ay khasaare filan lahayd. Waxaa jiray muranno badan oo horey xal looga gaaray iyadoo loo marayo habkan wadaxaajoodka labada dhinac. Qiimeyn la sameeyay ayaa lagu ogaaday in intii u dhaxaysay 1994 ilaa 2012 wadaxaajoodyo 16 ahaa oo badaha la xiriiray oo jiray badankood lagu xalliyay qaabkan. Sida wadaxaajoodkii 2003 u dhaxeeyay Azerbaijan iyo Kazakhstan iyo Russia. Wadaxaajoodkii u dhaxeeyay Australia, New Zealand ee dhacay 2004 iyo wadahadalkii 2008 dhex maray Mauritania iyo Seychelles ee xadeynta badda. Balse wadaxaajoodka iyo heshiiska ka dhashaba waxaa laga dhaxli karaa halis. Labada dhinac waxay xor u yihiin inay aqbalaan natiijada ka soo baxda wadaxaajoodka. Marka ay doonaanna way ka bixi karaan. Cid saddexaad oo soo dhexgalaysa wadaxaajoodkana ma jirto ilaa iyaga ay sidaas doonaan ama doortaan. Halista ugu weyn ee wadaxaajoodka laga dhaxlo waa in haddii lagu heshiiyo dib u calaameyn la isla ogol yahay aan dib dambe loogu noqon karin. Wadaxaajoodka waa hab xeer jajab ah ama dhinac kasta qayb ka mid ah sheegashadiisa lagu tixgelinayo. Kenya way isku dayday habkan, laakiin iyada ayaa ka jeefatay ballamo la dhigay ka hor inta aan maxkamadda ICJ loo gudbinin. Sidoo kale 2009 Kenya heshiis is-afgarad ah ayay Soomaaliya la saxiixatay, kaas oo ujeedkiisu ahaa in arrinta badda xal faa'iido leh ay ka hesho. Balse khiyaanadii uma suuragelin sababo la xiriira sida uu heshiiska u qornaa iyo ujeedadii loo qoray oo ka bedelnayd damaceeda. 2. Waa dhexdhexaadin ama mediation. Dhexdhexaadinta waxay qayb ka tahay hababka muranka lagu xalliyo, waxayna ku dhigan tahay qodobka 33 ee Cahdiga Caalamiga ah ee Qaramada Midoobay ee badaha ee 1994 ee heshiiskii hirgelinta sharciga badaha. Kenya waxay doonaysaa inay adeegsato habkan si ay faa'iido uga hesho arrinta badda ee Soomaaliya. Habkan dhexdhexaadinta ma ahan inta badan mid guuleysta. Waxaa tusaale loo soo qaadan karaa muranka badda ee u dhaxeeyay dalalka Belize iyo Guatemala oo guul daraystay ugu dambeynna sanadkii 2015 maxkamadda ICJ la horgeeyay. Kenya habkan way isku dayday, waxaana dhexdhexaadinta garwadeen ka ahaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Waxay weydiisatay Midowga Afrika iyo dalal kale oo saameyn ku leh siyaasadda Soomaaliya inay dhexdhexaadinta galaan. Isku daygaas weli ma guuleysan, laakiin weli waxa ay doonaysaa Kenya in isku daygaas ay sii ambaqaado ama sii wado. Heshiisiin conciliation.
heshiisiinta waa hab ka baxsan nidaamka cadaaladda oo si nabadeed muranada badda loogu xalliyo dibna loogu xadeeyo sida uu qorayo qodobka 284 qaybta 15 ee xeerka badaha iyo habka lagu faahfaahiyo heshiisiinta ee lifaaqa shanaad. Suuragalnimada in habkan lagu xalliyo muran way yar tahay. Dalalka inta badan way ka fogaadaan habkan waa in qof saddexaad ama dal saddexaad loo qoordhiibto loona hoggaansamo go'aankiisa ama soo jeedintiisa, taas oo labada dhinac ama dhinac gaar ah u horseedi karta khasaaro. Waa inaad ogolaato in xitaa haddii lagaa wada xukumo aad ku sabarto oo aad ka dhaqaaqdo. Laakiin inta badan waxaa la wadaagaa faa'iidada halka lagu muransan yahay. Muran badeed u dhexeeya dalalka Norway iyo Iceland oo la xiriiray qalfoof qaaradeedka jasiiradda J. Mayen ayaa habkan heshiis lagu xalliyey. Waana mid ka mid ah kuwa farakutiriska ah ee sidan lagu xalliyey. Heshiisku wuxuu dhigayay in xadka qalfoof qaaradeedka la waafajiyo diilinta aagga dhaqaalaha ee labada dal iyo in dhinac kasta uu 25% ku yeesho dhaqdhaqaaqyada hydrocarbonka ee dhinac kasta ka socda. Marka la fiiriyo faa'iido darrada dacwadda badda ee Kenya ay wajahayso, waa nooc kale oo ay aad u xiiseynayso maxaa yeelay khasaaraha ka soo gaaraya haddii laga guulaysto ayaa ka badan khasaaraha ay wajahayso marka wax loo ogolaado. Laakiin Soomaaliya, habkan khasaare mooyee faa'iido uguma jiro. In Kenya habkan heshiisiinta ah uu u suuragalo darteed, waxay cadaadis xooggan saartay Soomaaliya, waxayna abuurtay muran diblomaasiyadeed si ay sare ugu qaaddo khilaafka labada dal, ugu dambeynna loo soo farageliyo oo heshiis looga dhexdhaliyo. Habka afraad, u kala garqaadis ama arbitration. U kala garqaadista waa mid ka mid ah hababka guulaysta ee lagu xalliyo muranada badda. Ilaa marka la hirgeliyay cahdiga sharciga badaha sanadkii 1994, guddiga ama maxkamadda u kala garqaada oo ka kooban 5 xubnood, sida uu qabo Annex 7 ee cahdiga xeerka badaha, ayuu dhinac kasta oo dhinacyada muransan ah u soo dirsanaya xubin ka mid noqota, halka saddexda xubin ee kale uu magacaabayo madaxweynaha guddiga caalamiga ah ee kala dabqaadka xeerarka badaha. Noocan waa mid qasab ka dhigaya habka lagu calaamadeynayo xuduudda badda. Marka dhinacyada muransan ay ku guuldareystaan, waxay u gudbaan nooc qasab ah oo muranka lagu xalinayo. Wadamo badan ayaa horey habkan ugu xalliyay murankooda, sida murankii 40 jirka ah ee u dhexeeyay Bangladesh iyo India. Inkastoo noocan kala garqaadista ee guddiga garnaqsiga uu marar badan najaxay, haddana awood uma lahan inay labada dhinac ku qasbaan inay aqbalaan garqaadista si murankooda ay u xalistaan. Sidoo kale, dalalka kuma qasbana go'aanka ay guddigan soo saaraan inay u hoggaansamaan. Tanina waxay keeni kartaa inuu muranka xadeynta ama calaamadeynta sohdinta uu sii daba dheeraado. Kenya habkan way door bidaysaa bilowgii markii ay diiday ama ay damacday inay is-hortaag ku samayso qaadista dacwadda ee maxkamadda. Waxay ku doodaysay inuu weli labada dal u furan yahay inay qaadaan dhabbe ay ku xallin karaan muranka u dhexeeya oo ah inay kala garqaadasho galaan iyagoo u maraya guddiga xeerka badaha ee garqaadayaasha ama garnaqayaasha. Haddaba, Kenya maxay u diidan tahay in maxkamadda lagu xalliyo muranka? Hagaag 1973 Kenya waxay ku jirtay 7 dal oo diiday habka badaha dib loogu calaameeyo marka la murmo ee la yiraahdo equidistance oo ah masaafo loo siman yahay. Waxayna doorbidaysay equitable principle ama mabda'a cadaaladda ama xaqsiinta. Equidistance waa masaafada laga cabir qaato marka la xadeynayo badda lagu muransan yahay. Kenya iyo dalalka kale ee diiday waxay doorteen mabda'a xaqsiinta si ay xaq u hesho haddii sharciga uu ku adkaado ama uu u naxariisan waayo. Kenya haddii looga guulaysto dacwadda badda, waxay ku siganaysaa inay noqoto dal bad la'aan ah, landlocked. Waxaana u cuntamila in Soomaaliya oo xeeb 3300 oo kiiloomitir dhirkeedu la eg yahay leh ay iyaduna ku cadibnaato marin badeedka. Soomaaliya waa dalka labaad ee ugu xeebta dheer Afrika marka laga soo tago Madagascar oo leh xeeb 4828 kiiloomitir ah. Kenya ma doonayso inay hab sharci ah ku weyso badda ay u hanqaltaagayso ee Soomaaliya. Waxay ka doorbidaysaa in waxuun ay ka faramarogsato Soomaaliya. Markii ay diiday dacwadda badda in ICJ ay qaado, waxay ku dooday in sida uu qabo heshiiska MOU-ga ee isfahamka labada dal uu dhigayo in iyaga ay ka heshiinayaan muranka kadib soo jeedinta guddiga xadeynta qalfoof qaaradeedka ee CLCS. Kenya inay ka meelmeerto oo ay markii saddexaad codsato dib u dhigista dhageysiga dacwadda badda ee Soomaaliya kala dhexeysa, waxay ka dhigan tahay istiraatiijiyad ay ku doonayso inay waqti ku iibsato si hababka aan soo sheegnay ee xalinta ay ugu guulaysato. Waxaa xusid mudan in dacwadda badda dhageysigeeda lagu mudlan yahay bisha Maarso, xilligaas oo bil ka hor ay Soomaaliya dowlad cusub yeelanayso haddii aanu dib u dhac imaanin. Sidoo kale, haddii Kenya dacwadda looga guulaysto, waxay bixin doontaa ama lagu xukumi doonaa lacag magdhow ah oo ay siiso Soomaaliya. Sidoo kale, shirkadaha shidaalka ka baaraya aagga ay muranka gelisay ayaa dhaqaale badan ku soo dalacan doona Kenya maadaama heshiiska ay fulin weysay. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.
haddii aad channelka ku cusub tahay fadlan subscribe dheh si aad ula socoto muuqaalada dambe ee aan soo gelinayo inta aan muuqaalka xiga ku kulmayno nabadgal